soconnaa gobolka cagaarnay gabiley ilaa boorama laga gaadho markaa asxaabta waxaa laga soo duceeya waa raadiyo maqal oo jooga maanta Somaliland Hargeysa soo dhawaada aad baan idin salaamaynaa gobolka cagaarnaa weliba baqweyne ما شاء الله ما شاء الله لأني كسمن والله شيء ما أنا رجعنا في أرض بس بودس مسمى هاي موت يا برا welcome to the قبل أي مشي نجر جاهزة هذا كيلومتر والله وصلك عندك والله لا يقولوا توصيه محاكا قال هيبد وحاد ولا تركانو يس ودي هيبد وحاد ولا تركانو صعبتي رمز سبحان الله يوصلوا صعب والله هيبد وحاد ولا تركانو اسمه يعيد والله بالله وتعالى beautiful Emma Green, welcome to مقالة قبيلة يكتب له بس مقادان ما شاء الله الباس هذا البلد وحاد كل لاي تعرف كيف جمال كور السعودال كاين كامل لعبة ملك صداقي سمرقس لا السلام واو وليتك يس كيما دواوي يعني روشي بدك عادي روشي ايه تاسوع عنصر النمع والله فركان عادي فركان عادي ما انا عنصر النمع جوج النيو ولا نيكل وش كم مرة واو كم معي ساعد كيف من حيا سكرك جيفان صور مرينا عباد واحد كل ذا دلكاجو سكرك جيفا غير هيدا ويدا الكان سنوا عباد واحد كل ذا برضه لك على دمار لا بكيس سنوات ما مرين هنا على أريقة هنا على الله أنا عقلك أرقص welcome to smooth lami ماشي علينا يسي هاو smooth lami يجي كده كل وين واو الله هذا برواقه أفرتك يسوق ببارك سويسي والله يرد waxaanu soo galaynaa marnow kalabays ayaanu soo galaynaa hadduu ilaahay yaraado hargeysa aniga waan soo guuraya waxaan soo degayaa magaalo cadrunta aad baan uga helay iyadoo beero yarna laga siiyey meesha geesaha waa wada beer inaad arkaysaan mooyaane
ليش كنا كده؟ اوكي بوليس كا ومقعد بلق عاد. وبيت. بينهم مع عددهم. اوكي waxaan nimid hadda Kalabayr ama Kalabayr dhacda arabka qulucnaysid boorkii Kalabayr ayaan ku soo dhownahay oo kan Kalabayr dhacay halka oo Telesom this is the Kalabayr soma okay hadda ayaanu ka baxaagaas dhinacan ku talaamiga wajah السلام عليكم waxaanu nimid imikana magaalo cad balligeedii waa imse balli baa halkan ku yaalla laba balli ayaa ku yaalla halkaasuu ka soo tuuraa ceelku biyuhu ku dhacaan haa balliguna waa kan horta ay biyaha ku soo baxaana mala wataa magaceedana waxaa la yidhahdaa jifo oo runtii si aada iskugu taxallujiyey inay qayb weyn ka qaataan xagga beeraha waxaad ka arkaysaan beertii iyo xoolihii oo daaqaya si wanaagsan barwaaqo wanaagsan baana ka muuqata waa kan balligu markaasuu ka soo baxayaa halkaasuu tegayaa ilaa iyo wuxuu tegayaa markaa beertuu tegayaa warabtaa maasha allah 1 kilomitir buu tegayaa حوقي ما دوا حوقي يجيب حوق بديه والله كيس حوقه قول يربع صعدان ما شفت عم بوصل والله هاوي سبحان الله عندنا موده لايبه ما كان سواده markaas shidaalka uga yani uga nasano bay waxaasi oo dhan haya hadii markaas systemkan solar systemkan alxamdulillah rabbil alamin waxaad moodaa rally inaad joogtid ma sha Allah magaalada aad iyo u dadaashay waxaanu nimid duulay ku roon yahay magaalo cad oo halkaas solarkii ugu badnaa oo ku xiran yahay magaalo cad oo xoolahaas daaqaya xoolo aad iyo aad wanaagsan armay dilayeen kale waan la heshiis baan lahaay xoolaha qurux badan way adeer soo ma aad baan ugu faraxsanahay inaan idin imaado waaw beero wanaagsan ما شاء الله مقعدر عبد الرزاق هلكن حولها هلكن دقنتها كورن عيلكن ما كفايديستين عيلكن wuxuu ku shaqeeyaa qorax soo ma qoraxdaas ku shaqeeyaa ما شاء الله عبد الرزاق barasho wanaagsan beertan yaale oo dikale bihi waa kuwan ay cabayeen soo ma ما شاء الله
ما شاء الله برواقي لهي نسيوية إن بارتي يحوري أسكودنا عيالان ونمعوي برضو قيل بنركي قيل حقو يالي شكون ما تقطع بارت هذا الكورن حكاك صوب حاضر حكاك صوب بارت قروية يا رب هذا المصدر هذا نمعو أنا وهي سي بيقصورس أنا مريم واحد لو فرح ما شاء الله أمير مقعه عبد الله محد بارتين معك صبحه وحي لو بيروا بينا وada shan soma xageebe biyo ka soo dhacaan marka ceelkaas taangigaas ka soo baxan soma lagu soo shubayo yaa ku soo shuba taangiga ceelka laga soo shuba xagee ceelka qorraxdaas aad ka heshaan soma baalka baanalka cadceeda aadi dabeerka ka ilaaliya ka cunin jufo urey ayaanu maraynaa ma sha Allah urey ayaanu naamiga kaga dhacaynaa haddii ilaahay yidhaahdo annagoo ka nimid magaalo cad ayaanu ka nimid waxaanu ka baxnay magaalada Hargeysa waxaanu ku sii jeednay iskuulka loo yaqaan Goray oo ku yaala duleedka magaalada Gabiley oo kaga beegan ilaa 10 kiiloomitir dhinaca koonfureed haddaba iskuulkaasi waxaanu gaarsiinay agab loogu talagalay sanad dugsiyeedka 2019 ilaa 2020 alaabtaasi oo ka koobnayd buugaag iyo qalimaan waxa laga soo ururiyay ama jahliyada ka soo jeeda gobolkaasi oo ku kala nool daafaha adduunka haddaba maranu waraysi la yeelanay amaan wareejinay agabkan ugu talagalay in caruurtaasi wax ku bartaan sanad dugsiyeedka soo socda ayaa waxaanu fursad u helay inaan wareysano maamulaha iskuulka oo magaciisu yahay Axmed Maxamed Carte iyo maamul ku xigeenka oo ah Fadxi Aw Muuse Yuusuf qadaba waraysigii maamulaha iskuulku waxa uu dhacay sida tan raxiim magacayga waxa la yiraahdaa Axmed Maxamed Cabdi oo ku magac dheer Carte maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Goray ee ku yaala tuulada Goray marka waxaan kala wareegnay buugaag 80 arday buugaagtood oo ah 480 buug kuwaasoo ay soo bixiyeen qurba joogta Goray waxaan markaa ugu mahadnaqaynaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadkaasi ilaahayna aad siiyo waxaan leenahay markaasi dadkooda inta kalena inay ku soo daydaan oo soo la socdaan baan doonaynaa waa intii u horeysay iyo waliba albaabo 5 albaaba oo ay u sameeyeen dugsiga waa albaabadiisu wada jajabnaayoon wax laga xidhan la'aa oo wasaaraddu waana qoladii u horeysay ee dadkooda soo tawda ee u keenta wax markaa waad ku mahadsantihiin baan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin ilaahayna idinka ajir siiyo wassalaamu calaykum magaca Cabdiraxmaan Muuse Cali runtii ilaahay waa mahadle maanta yawmul jumca oo maalin qaaliya oo maalin farxad leh halkaas sanad ka hor waxaan sawir ka qaadnay aniga injineer Jamaal iyagoo caruurtaas meel cidlada ay wax ku dhiganayaan oo dabaysha iyo roobka iyo dhaxanta ay ku dilayaan maanta arisay guriga loo dhisay alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay loo kuma naqaway awal loo wax ku dhigan jiray laakiin maanta waxay ku dhiganayaan waa kitaabka weeyaan ardaygu waxa lagu talagalay 2 sano quraan ku dhameeyo dhowr sano ka qaadan jirtay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa injineer Jamaal oo hawshan xil weyn iska saaray iyo dhammaan dadka ka qayb qaatay hawshan inay dhacdo waxaad gooniya isaga hawshan fudeeyay haday dhaqaale urur noqoto iyo haday dhismo noqoto aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo mahadnaqayaa
fuaad cumar ismaaciil oo kutubta noo soo iibi ku qaybtay ilaa isna khayr ha siiyo sheekh nimcaan waxaan aad iyo aad maanta runtii farxad weyn noo ah in madrasadan maanta tiba habeenkii raggu ay ka faa'iideysanayaan gelinkii damartu ay ragga ay ka faa'iideysanayaan oo halkii qaad wax laga mashquul laakiin habeenkii raggu wax loogu dhigo waxba dhigan gelinkii damana dumarkii wax loogu dhigo gelinkii hore carruurta wax ku dhigataan dadweynahaas oo maxay ay qabatay waxaan ku maxay lahaa dadka deegaanka inay ilaashadaan kuraasta waxaan kaloo u soo jeedin lahaa inay carruurtooda iskuulka iyo madrasada keenaan waxaan qurbaha labada iyagu soo jeedin lahaa inay intan aan nagu iloobinay ay maxay ahayd intan in kaloo ka badan baan ka sugnay insha Allah bismillah aad baa santihiin assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillahi rahmaani rahiim aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay inaan joogno meeshii magaraysa dhagaxa dhignay maanta waxaan ku dhahnaa wixii markaa dhammaan dadweyne ka qayb qaatay ee adduunka daafaha tacalada kala joogay oo magacadooda soo koobi karo waxaan leeyahay sadaqadii lacagta la soo qaaday halkaas ay gashay wata carruurtii maanta dhiganaysa quraankii wakaasho ee lacagta ganacsiga hawlo badan baa dhiman laakiin waa bilow wanaagsan insha Allah waxaan rajeynayaa inuu si dadaalo way hawlo ma dhawa cidda lacagta ay sugaysana waa inaga haddaynu nahay qurbo joog iyo qurbo joog labadaba marka waxaan halkan ka cadaynayaa oo leeyahay hawshii iyo lacagta soo bixiseen waxaan markaa maanta halka joogta dhismaha quruxda badan ee arkaysa way dadkii hore daawaday canjiladii hore way arki karaan yacni maanta iyo maanta halka ay joogaan marka dhammaantiin dadkii raad qaatay hadday joogaan Mareykanka Ingiriiska iyo Norway iyo dhammaan Djibouti meel kasta oo gudihiisa waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaantiinba sadaqadiina wataasi dadkii waan gaarsiinay waxaana ka maqraatay ubadkaalka taagan marka aad iyo aad baad salaamaya laakiin waxaan leeyahay hawli ma dhawa waa bilow oo dadaalayna insha Allah aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaantiin intaa walaalayaal waxaan loogu dhammaaday barnaamijkeena gaaban ee ka hadlayay deeqdii waxbarasho ee aan gaarsiinay iskuulka ku yaala duleedka magaalada Gabiley tuulada loo yaqaan Goray ama iskuulka hoose dhexe ee tuulada Goray waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay online aad iyo aad baad mahadsantihiin walaalayaal fariinta uu diraya barnaamijkan waxa weeye aqoon la'aan waa iftiin la'aan walaalayaal aan caawin carruurteena doonayeen wax bartaan waayo marka lagu dhaado ilmahaasi wax buu baran lahaa laakiin ma haysto buug waad garanaysaa culayska walaalahay leedahay marka walaalayaal aan dadaalo waxaan leenahay aad baad mahadsantihiin dhammaantiin mar labaad iyo mar saddexaad intaana waxaan kusoo koobayaa barnaamijkan yara koobnaan kaga hadlaynay deeqdii waxbarasho aan gaarsiinay iskuulka Goray waa anigoo Jamaal Axmada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh